Assalaamu calaykum. Habka ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo caafimaadka maskaxda waa mowduuca muuqaalka. Ku soo dhawow channelka Cilmi Baashe. Inkastoo maskaxdu ka kooban tahay wax ka yar 3% jirkeena, haddana waxay isticmaashaa wax ka badan 20% tamarta uu helo jirka. Saynisyahanada ayaa helay habka ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo caafimaadka maskaxda inay tahay inaad isticmaasho iyo inaad ku shaqeyso. Inaad ku shaqeyso waxaan ka wadaa inaad wax ku aqriso, wax ku barato. Waxaa kaloo lagu ilaaliyaa inaad sameyso almiito, orod, iyo inaad sameyso xujooyinka maskaxda lagu kacsho sida kuulaha afargeeska ah ee midabkooda la isku aadinayo ee la dhaho ama loo yaqaan Rubik's Cube, iyo xarfaha la isku aadinayo ee la dhaho puzzle. Geemamka noocan ah waxay kacshaan shaqada unugyada maskaxda ayagoona ka hortaga caajisnimada iyo stresska, waxayna siyaadiyaan habsami u fikirka qofka. Waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago xogtan yartaa ee kooban. Fadlan sii gudbi. Aad ayaad u mahadsantahay.